General Axmed Maxamed Cali Sow General Tiridish taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda ammaan ee deegaanada Hirshabelle ee ciidamada qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka howlgalaan iyo waliba howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanada maamulka Hirshabelle. Waxaana uu sheegay General Tiridish in sanadkii tagay 2019 ciidamada qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada Hirshabelle ay ka fuliyeen howlgalladii ugu badnaa iyagoona galay ilaa 28 howlgal oo ay kula dagaalameen Al-Shabaab, kuwaas oo uu sheegay in Al-Shabaab looga dilay howlgalladaasi ilaa 90 xubnood oo qaarkood ay ahaayeen madax sare oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo hadalka u dhigay. waa kan taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hadlaya arrimahaas kadib wareysi gaar ah oo siiyay telefishinka Somali News. waxaan hadaladiisii ka mid ahaa amniga deegaanada hadda ee qaybta 27-aad ciidanka dhulka ay joogto ay ka taliyaan oo ka howlgalaan waa deegaano aad iyo aad horta deegaan aad u ballaaran waaye oo lebi hiiraan meesha la yiraahdo ilaa iyo ceel cirfiid ilaa ceel cadde isku xira waa dhul aad u ballaaran. dhinaca xuduudka feerfeeray jiraan, dhinaca kale waxay xad la leedahay qaybta 27-aad dhinaca maxaan ku yiraahdaa Baaye Bakool, dhinaca kale waxay la leedahay waa qaybta 6-aad iyo 21-aad. qaybtan waxay la shaqeysaa 3 sector oo AMISOM ah, sector 3, sector 4 iyo sector 5 ilaa Galmudug halkaas oo ka shaqeyso. qaybta 27-aad amniga deegaanada hadda ay joogta waa amni aad iyo aad u wanaagsan laguna faani karo, shaqo badan ay ka qabatay. sanadkii ugu dambeeyay hadda oo ugu dambeeyay oo 2019 shaqo aad u ballaaran ay ka qabatay dhulka qaybta ay ka taliso. amnigiisana waa amni hadda meel fiican maraayo, runtii shaqo ballaaran ay ka soo qabatay. waayahay maxaa noogu sheegi kartaa mudane taliye ee deegaanada howlgallada ciidamada qaybta 27-aad ay ka fuliyeen ee ka tirsan Hirshabelle magacyadooda? qaybta 27-aad haddaan ka soo qaadno 2019 waxay gashay howlgallo aad u ballaaran ilaa iyo waxay gashay markaan deegaanadeeda oo dhan isku soo koobno ilaa 28 howlgalay gashay oo balbalaaran, kuwa yaryar oo ka kooban mooyaane kuwa waaweyn ay gashay. runtii waxay qabatay howl aad u baaxad weyn oo nimanka al-qawaariijta oo dhibaatada wada argixisada ay aad uga shalaayeen oo ay dhib badan lagu gaarsiiyey. howlgalladaas 28ka ugu waaweyn yaryarka marka waxa yaryar oo maxaan ku yiraahdaa aan ka reebno sida operation-nada meel cadowga joogo oo kooban la soo sheegay ay ciidamo qorsheysan loo diray markaan ka reebno wax ballaaran waxa laga galay 18kaas howlgal. markaan isku darno waxa oo dhan howlgalladaasi waxay noqonayaan ilaa 52 howlgal ay noqonayaan. guul ballaaran inay ka gaartay qaybta deegaanada laga fuliyay waxaa ka mid ah Ceel Cali, waxaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaa soo agagaarka Buulo Burte, waxaa ka mid ah Jalalaqsi, waxaa ka mid ah soonaha agagaarka Maxaas, waxaa ka mid ah deegaanka Xaaji Cali agagaarkiisa sida Geelgub oo kale, waxaa ka mid ah masaajid meesha la yiraahdo Cali Guduud, waxaa ka mid ah howlgalladan deegaankan wadada isku xirta Xamar iyo Jowhar, waxaa ka mid ah howlgallada meesha laga galay Yaaqle meel la yiraahdo oo webiga jiinkiisa ah, waxaa ka mid ah meelaha dagaaladan iyo howlgalladan ay ka fuliyeen qaybta 27-aad ciidanka dhulka. waa deegaano aad u ballaaran. khasaaraha nimanka cadowga gaaray ma yara. 2019 howlgalladii la galay qawaariijta waxaa halkaas looga dilay 98 qof oo ay ku jiraan 19 horjoogayaal ah oo ugu dambeeyay kii lagu dilay Ceel Cali. hadda 2019 waxaa si fiican u dhammaaday awooddii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee al-qaacidada waa dhammaaday, xaqiiqatan waa dhammaaday. wuxuu ku soo haray wax maxaan ku yiraahdaa dhagar ah oo kaliya. taasna ma haddaas waxaa iskale dowladdeena oo hogaaminaya madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraheena maxaan ku yiraahdaa dowladda federaalka. sidoo kale taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Axmed Maxamed Cali Sow General Tiridish oo ka hadlaya sida looga hortagi karo cudurka coronavirus ee faraha baan ku haya dunida ayaa fariin u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed intaba
uguna baaqay inay badiyaan allabariga islamarkaana dadka qaadka ka ganacsada ka dalbaday inay joojiyaan qaadka ee waddanka ay soo gelinayaan amarka dowladdan ay qaataan si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus isagoona tilmaamay in cudurka coronavirus ay tahay daawadiisa oo kaliya salaada oo la badiyo iyo weliba ku xirnaanta leyntaba ciidamada qalabka sidana waxaan leeyahay mar walba nadaafadiina ku dadaala ka feejignaada guud ahaan gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27aad waxaan leeyahay wanaagiina ee nadaafada lagu dadaalo salaada Ilaahay hala dukado islaam aan nahay cudurkaasina cudur maxaan ku iraadaa daawadiisu ay tahay salaada dukada Ilaahay ka baqa salaada dukada markaad weysaysataan salaada dukataan nadaafadiina ilaalisaan waxaan aaminsanahay wax maxaan ku iraadaa cudurkaas in laga leexanayo waxaan leeyahay dadka meelaha qaadka iyo wax soo dejiya naga joojiya taasaan leeyahay sida waajibkii madaxda qaranka ay bixisay hal qaato hal joojiyo cudurkaas si sahlan ku soo raaci kara waa in la joojiyo insha Allah iyo diinka alla bariga in la badiyo Soomaali waxay ku nooleed alla barigeeda in Ilaahay barido diinka akhrisato waxaan leeyahay diinka akhrista ducada badiya insha Allah culimada waxaan leeyahay ducada hal badiyo culimada aan la hadlayo culimada wanaagsan waa ee qawaariijta lama hadlayo aniga qawaariijta waxa naga dhaxeeya waa dagaal wax kale oo naga dhaxeeya ma jiraan culimada wanaagsan oo sharafta leh waxaan leeyahay diinka iyo ducada hal badiyo insha Allah si dawladnimada ay noo maxaan ku iraadaa hor noogu socoto noogu adkaato cudurrada iyo masiibadana Ilaahay nooga duwo Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News Muqdisho